luqadeeniina aynu noqonno dad bartay afka Soomaaliyeed uu sii dhimanaya innagaana dilayna ma aha in cidi ku soo duushay oo innaga isticmaali weynay nimashadiisa waxa kaaga filan dee bal waxaad akhridaa uun xayeysiiska magaalada Hargeysa ku qoran ee dadka caamada Soomaaliyeed loo xayeysiinayo dhammaantood haddaanan odhan boqolkiiba 90 waa af Ingiriisi waxaad moodaa in Somaliland Ingiriisku degan yahay waxaana ahayd inaynu afkeena ku qoranno waxay ahayd wax badan aynu isu sheegayno inaynu afkeena isticmaalo af Ingiriisi baa inala noqday wax weyn oo aad u weyn markaasaynu afkeenii liidnay oo dilay dee carabina isaga hadalkiisa ba iska dah hadda dastuurka waddankana Ingiriisigu kuma yaallo Somaliland dastuurkeeda maxaa ku qoran luqa lula inay maxay tahay Soomaali luqada labaadna inay tahay Carabi haddana dawladdu waxay wax ku soo saartaa in badan oo ka midi af Ingiriisi ay wax ku qortaa dadkuna af Ingiriisi wax ku qoraa waraqa la isu gudbinayo af Ingiriisi lagu qoraa waxaana dastuurka ku qoran war af Soomaali wax lagu qoro af Carabi wax lagu qoro waxaynu awoodi weynay dukaamadeenna boodhka ku qoran inaynu ka dhigno Soomaali marka luqad dadkii lahaa aasayaan sida kor ugu soo kacda waa adagti laakiin haddii quraanka lagu fasiro in sha Allah waxaan islaahay wuxuun baa baaqi ka noqon waayo kitaabka quraani waa kitaab baaqiya ilaa yawm alqiyaamah ilaahay ballan qaaday inuu hadhayo wixii lagu qorana waxaan islaahay wuxuun baa ka hadhi doona marka waxaan isleeyahay qaab loo nooleeyo af Soomaaliga waxa ka mid ah kitaabkan aynu caawahayno oo isaga laftiisu wuxuu ka qayb qaadan doona inuu af Soomaaligu dib uu soo noolaado ama uu joogo oo dib uu soo barbaaro idinaca waxaan idinkula talinayaa afkiina hooyo inaad dib ugu noqotaan ardadii hore Soomaaliyeed waxa caado ahaan jirtay 3 bilood fasaxa in baadiya la qabto oo nin kasto ama da'dayda ama da'adii ku dhaweydaha iskuulka marka laga fasaxo baadiya bil 2 bilood la soo joogi jiray taas waxay xoojin jirtay dadkan inay dhaqankoodii iyo af Soomaaligoodii ila baadiyu yaalay inay si fiican u soo bartaan iminka baadiyihiina wuu baabay deedina waa ka xaragootaan baadiya Soomaa ina baadiya qabataan ba wax falxun la idin la muuqata Hargeysana af laguma hayo uu baabay aad buu si dhimanaya waxaan isleeyahay af Soomaaligu hadduu dhinto xataa hadhow wax idin garan waayo quraanka cid idin fasirta ilaa af kalena umaynan tallaabin keenina waynu aasaynay marka waxaan isleeyahay kitaabkani af Carabigi wuu noolayn af Soomaalina wuu noolayn quraanka macnihiisina wuu soo dhaweyn intaaba hadduu inoo wada qabanayo inuu meel weyn inoo degi doono baan rajaynayaa ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kii uu rabbi aqbalo ee dadku ay bartaan ee lagu badhaadho inuu ka yeelo صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله